wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa waxa uu ka hadlay meydka qof u dhashay wadanka China oo ku geeriyooday cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa kaasi oo meydkiisa lagu gubay waqooyiga magaalada Hargeysa. wasiirka ayaa sheegay in gubitaanka meydkani ka hor ay wasaaraddu la tashatay culimada dalka. sidoo kale wasiirku waxa uu beeniyay inuu qofkan u dhintay xanuunka coronavirus. dowladda Somaliland waxa u xilsaarsay diinta iyo awqaafta wasaaradda diinta iyo awqaafta inay maareyso arrimaha diinta la xiriira. saad ka wareysaan nin Chinese ayaa dhakhtarka weyn ku dhintay. ninkaas xanuunkiisu waa xanuun caadi ah, leukemia waxa la yiraahdo ama maartay kansarka dhiigga iyo waxa ku dhacay kaliya xanuun. markay soo cadeeyeen cisbitaalka guud ee Hargeysa soo cadeeyay wuxuu runtii ka codsay wasaaradda diinta iyo awqaafta in ay maareyso amba inoo sheegto qaabka qofkan loo aasayo ama looga takhalusayo. waxaa runtii halkaa aan u fadhiisanay culimada waaweyn ee dalka annagoo eegayna maslaxadda guud iyo diintana waxay ka tiri. waxaan caddaynay in madaahibta islaamiga isku khilaafsanayn qofka gaalka ah ee aan muslimka ahayn ee runtii xurmada islaamka kale ma laha. sidaa darteed waxay caddeeyeen ciddii ahalka u ahayd haddii joogto waa loo dhibaya si ay doonaan haw galaane. sidaa darteed innagu kamaynu qayb qaadanin inaanu ilaalino mooyaane oo dee loo ilaaliyo goobta mooyaane lagama qayb qaadanin gubitaankiisii. laakiin gabadhiisii oo joogta iyo ehelkiisii iyo Chinese-kii la joogay ayaa lagu wareejiyey. waxaa runtii khaldanayd oo runtii aan kula xisaabtanayna dadkii geystay ama caddaankii iyo Chinese-kii hawshaa geystay inay la tageen gubista meydkaasi meel aan ku habboonayn sidii ballantu ay ahayd. taas waa qalad ka dhacay iyaga, laakiin xagga diinteenna sharci ahaan qofkaas gaalka ma mutaysanin xurmadii uu lahaa qofka muslimka sharci ahaan. haddana wax xaq loo u yeeshay in ku wareejino dadkii iyagu ehelka u ahaa si shariicadu dhigayso. manay dhicin dhaqankoodu ahaa inay gubaan. manay dhicin caalamul islaami cid caynkaasoo kale looga qaado amba loogu diido meydkooda inay aastaan amba ay gubaan amba ay waxay doonaan ku sameeyaan. sharci ahaanna saasaa la ogolaaday.